وإلهي حمدي وإنه ما تمرينه إنه كلا حجنه هيرارك إسكارسينته عركة مهودة والله الشيء إنه من هاي الدولة اللباتنات أفريقيا وواحد لقوا فانه مركز لقى إيجو هل كدل إنه كسر كعي مدة ويد هي هل كأنه مرينه وزاردنا وحويان وساردها كتيرة دجال كعروس الدبلوم سو علينا يو كابياشي قرني ماذا إيرلو ما يلحن كياما ينطوري وحنا كم ذا فرها قرني ماذا مجيد ويجا دل كانوا لي هاي أو ميدنا ويلكم مرسلنا هاي حمر يكونفر سؤال شمركان ما أنت ماشت على وحوي سوماليا أما سوماليا إيطاليانو أما بريتش سومالي لان labadii dawladda la oran jiray iyama xorriyad qaatay oo xaq u yeeshay inay helaan geedweyga dawladnimada ama isgaarsiinta su'aasha jawaabteedu waxa weeyaan mid cad laakiin aad moodo inay dadka badankiisa ka qarsoon tahay waxaynu ahaan jiray maxmiyad iyo mustacmarad inagu maxmiyadaasaynu ku qaadanay calankeena iyagu se laba qaybood bay mareen qayb مستعمرات يقيب ترسب أما إن لكوريو سوماليا كوني سجال بقول يا سجال يأفرتن كي دولة إنجليز كو هاي يونايتد نيشن كودي بتاعي سومالي محو هاي يعني سومالي دي كونفراد UN كانوا وحودي بي تاليانيجا under the censorship of Italian government وحنا اللي سيتوان صراحة نانا تاليان كور هاي إنه واحد قادني لحدا كي 26 بين حرية قادني دولة بين نقولني بقرد إنجليزكا إبريق الوابو ديراده الله ديريه وحي نوسه حدي إنه حرية ما قادني لما هيو ميل سومالي إيطاليانو أي حرية قاته لما نسوه ليو UN كان متعلو ديوانه ذلك بجرتو waxaa ku jira xorriyaddii Soomaaliland qaatay haddaba goormay ka baxday dawladda Soomaaliya tarashibkii nimanka aynu muransannahay ee inagu haysta maanta geed weegeeni waxaa la ogaa iyada oo aan weli dhammaan 10kii sano waxay ahayd December 1960 in aanba tarashibka lagu sii hayo ama Talyaanigu xornimo siyaabay iyagoo waqtigii gaadhin ayaan xornimo qaadanay waataynu la tagnay inagu hadaf lahayn nimankaasu bariga marbay wax garteen waxay yiraahdeen waryaadheen deegaanana waxaanu nahay tarashidina dawlad baantii sidaynu isu qabanayna broota aanan 6 bilood naga dhamaadaane naga yara jooga ma yeebaynu taayada inagu filan taayadan ayaa inagu filan oo miyana siinaysaa oo naga qayb galaysaa ha dabeedna way nala yaabay waxay noogu bixiyeen Soomaali qaldaan niman qarannimo haysta oo dad tarashiboo la hayo qarannimadoodii iyo dawladnimadoodii huwiyay waxa samuuqata Soomaali qaldaankaas inaanu inaga hayn ee iyaga waxa waxay garan waayeen hadii maalin la isqabto iyagoon xorriyad lahayn oo aynu kala noqon xornimada aynu qaadanay 60kii inay ku soo dhici doonaan tarashib dambe after 30 years 40 years 60 years oo maanta jirta oo Soomaaliya ay tahay tarashib ummad ku jirta oo sida ogtiin UN ku xukumo oo UN ku maamulo oo dawladuhu markay qaran yihiin waxa laga eegaa inay ciidan leeyihiin inay territory leeyihiin inay madax bannaan yihiin waxa haya oo ciidamada UN ka haya waxa haya oo dhaqaalaha siiya UN ka waxa maamula UN ka safiir waxa uu fadhiya muxuu ahay barasab UN ka haddaba waxaan la yaabanahay nimanka tarashibka ah inay ilaa maanta waxyaabaha ay ku dhagan yahay ka mid tahay geed weegeen waxaan halkaa insha Allah u rajeynayaa wasaaradda in dhaqso ay ugu guuleysan doonaan iyadoo waliba aynu inagu leenahay geed weege iyagaan lahayn caalamkana waxaynu sheegaynaa war nimankan dadka nooga furfurmaan deegaanka xorriyad siiya deegaanka hal la yiraahdo war tarashib baatiin oo waxatiin sidii 60kii baa leedin ku celiyay nimankan iyo dawladnimadooda iyo qalabkooda faraha uga qaada